Kai Havertz kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa guul ka gaadhay waqti dambe ah. Muxuu gool ahaa gool lama odhan karo gool. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa guul muhiim ah ka gaadhay kooxda Newcastle oo marti ugu ahayd garoonkeeda iyadoo 3 dhibcood oo muhiim ah. Qadii 89 ayuu Kai Havertz wuxuu gool ugu dhaliyay kooxdiisa. Muxuu gool ahaa goolkaasi gool lama odhan karayo. Gool lama odhan karayo markaan arkay Kai Havertz oo sii xaroonaya iyo odaygii Jorginho oo Jorginho oo soo qaaday waxaan la yaabay oo aan si wareede saa u wareegsanaysa maadhi waa ku jirtaa mar haddii Kai Havertz odayga culusow iga ilaaliya baa idhi odayga culusow reer Chelsea odayga culusow hadda odaygana isrogi karanaya dhaqaaqi karana nin kala maaha Lukaku waxaan kubaddaas hadday Lukaku u tagto dhalan mayso laakiin hadday u tagto Kai Havertz waa noo sheeki in goolkaasi laga soo dhex qaadayo anigu waa arkay kubadda cagta Blues ayaa ku jirta waqti adag oo niyad jab ah kuna keentay xayiraad lagu soo rogay oo ay ku soo rogtay dawladda Ingiriiska. Haddaba goolkan ayay ugu dabaaldegeen si aan caadi ahayn maadaama uu goolkan uu ahaa uguna jiray wax weyn adigoo quraacdii iyo qadadii iyo shidaalkii iyo waxaan ku yidhi oo aan qadayn oo quraacan adigoo aan shaahino tamaashaadkii iyo lacagiyaa iska heli jirtay adigoo waayayoo adduunkoo dhan waxaan ku yidhi sidaa lagu eegayo waxaan ku yidhi dalkii dhammaa cadow kuu arko hadda dalkii dhammaa aad joogtay cadow kuu arko maxaad u malaynaysaa adigoo tafaha lagu haysto haddii aad gool intaad dhalisid waa dabaaldegaysaa ilaah baa inalehe kooxda kubadda cagta Chelsea waa garteed inay dabaaldegto inay faraxdo waa garteed anigu waa gacan baan u taagay Kai Havertz iyo Chelsea nimankan waxaan islaa marba marka dambaysa way kala yaacayaan xaaladdu jiq bay ku noqonaysaa qaar baa odhanaya anagu ciyaari mayno maxaa haddii lacag baan meesha joogo war anagana iibiyo kala yaaca baan islahaa laakiin isma lahayn kooxda kubadda cagta Chelsea yaa saasoo dhan u niyad fiicnaanayso oo badinayso oo rag iska celinaya isma lahayn runtii baa fiicane. waa tababara Thomas Tuchel ayaa markii ciyaarta ay dhamaato oo siiriga la yeeriyay ayaa la arkayay farxad weyn waxaana la arkayay isagoo xidigihiisa xabadka gelinayo laabta gelinayo odhanaya war waa mahadsantiin biri caawa helaysaan cashadiina aniga unba meel ka soo amhanaya kuna ka soo saaraa koonkaygana. haddaba kubad uu meel fog ka soo qaaday xidiga heer Talyaaniga ah ee Jorginho ayaa lugta bidix waxaa ku maamulay oo ku kaantarooray isagoo ordaya waliba xarada ganaaxa galay daafacyada Newcastle oo dhan intuu soo daba maray oo isagoo daafac hor taagan yahay oo goolkiibii hor taagan yahay hadda waa goolkiibii dhammaay meesha dhan waardiyaha ka hayay buntu saa u qabtay lugta sidaa uu qabtay anoo see war ninka khasaari hadaba busaa uu yiri dhag war mise kubadda waa ku jirta muxuu gool ahaa muxuu baas ahaa Kai Havertz ninka gacan baan u taagay wiilka yar xuna caatada ay moodo istakiinka maartay lagu findhisho wiilkaasi waa khatar. qaybtii hore ee ciyaarta ayay fursado badan samaysay kooxda kubadda cagta Newcastle waxaana kubadaha gantaal ahayd dul marmarinayay hadda goolkiibaha ku toogtooganayay Mendy ku tooganayay maxay toogtoogteen kuwaasi waxbay saa u tuuraan waba la yaabayba wadakii Sacuudiyaan ku gatay oo lacag ay u heleen baa nimanka Newcastle waxaan malaynay beri dhow sida Man City bay noqonayaano mid kale markay Chelsea arkaan waxay noqdaan dhagax waba la yaabasaaba hadda waa dhagax bay ku noqdaanba marka caaw waxaan isla kooxdii Chelsea hay waa loo yaabay wala burbursanaya laakiin way is adkeeyeen kooxdaasi si labaad ciyaarta ayay Chelsea waxay ku soo gashay awood iyo dardar xoog leh maxayna weerar soo qaadeen Tim Werner ayaana mar ku sigtay inuu shabaqa gool ugu habsiyo ama penalty loo dhigo laakiin offside ayaa ku jirta baa lagu yiriyo calan wadaha iyo xagaas iyo waxba laga fiiriyo waxa la yiri waa gool baad waxaad ku jirtaa bahalkii hadaba daqiiqadii 76 ayay heshay fursadii ugu fiicnayd intii ciyaartu ay socotay waxaana kubad cross ahayd dhinaca ka keenay Hakim Ziyech kaasoo madax uu ku qabtay Kai Havertz caawa ciyaarta wuxuu ka ahaa libaax markaas madax uu dhag ninkaasi madaxana waxa ka qabtay goolkii baha Newcastle oo iskala bixiyay arkaasa warcaawa wuxuu muxuu ahaa bilaayo haab ninkaasaan wax baan ku sheegay garamaaye haddaba daqiiqadii waa goolkii ugu khatarsanaa ee maxaa la dhahaa ee kooxda kubadda cagta ay heshay Kai Havertz 1-0 ayuu ka dhigay ciyaarta daqiiqadihii ugu dambeeyay Chelsea ayay heshay goolka
iyadoo 90 daqiiqad ay ku sii dhacayso waxaana saddexda dhibcood u go'aamiyey Kai Havertz oo si xaraga leh u maamulay kubad oo Jorginho soo qaaday dhinaca midig isla markaana isdejiyey goolka intuu hortiisa ugu dejiyey kubadda hadda saa intuu u dejiyey busaa u dhiga waa ku jirtaa goolkaas waa laga soo dhex qaaday kooxda kubadda cagta ayaa waxay ugu filnay inay goolka kaliya ay u baahnaayeen maadaama ay 3 dhibcood oo muhiim ah heleen haddaba ciyaartii saas ayay ku soo dhamaatay ciyaar la isweerarayo aad u qurux badnayd waxayna uga dhignay guul weyn ba uga dhignay maadaama ay kooxda kubadda cagta Chelsea xaaladeedu aynu ognahay siday ku jirto kaalinteeda saddexaad ayayna sii xajisatay waxayna leedahay 59 dhibcood waxayna iska fadhiyaan halkaas iska fadhiyaan waxay leeyihiin Ingiriisow annagu weligiin bina ganaaxa ama dawladda UK na ganaaxa ama Premier League na ganaaxa annagu halkaygaas iska fadhinaa meel uma socono dhanka kale kooxda Everton ayaa laga badiyay waxaana ka badisay Wolves kaasoo 1-0 lagu garaacay sidoo kale Leeds United ayaa waxay daqiiqadii ugu dambeysay iyaduna caawa waxay ka badisay kooxda Norwich City Southampton iyo Watford ayaa iyaduna 2-1 ku badisay sidoo kale West Ham ayaa 2-1 waxay uga badisay Aston Villa iyo ninkii la oran jiray Steven Gerrard ayaan ku soo gabagabayn doonaa wararka ciyaaraha sidoo kale kooxda Arsenal iyo Leicester ciyaaraysa Thomas ayaa gool hadeer u dhaliyay marka ciyaartaasna 1-0 bay maraysaa daqiiqaduna waa 16 iyo meelahaasay sii socotaa marka intaynu kulan dambe isku imaan doono hadhow ayaan isu soo laaban doonaa salaamullaahi calaykum asxaabta sharafta leh subscribe-ka iyo like-ta iyo comment-iga iyo share-ta iyo waxaan ku war saaxiibayaal noo kala kiciyo baashan iyo koofiyada noo saara saaxiibayaal sibaad bariyahan waxaan ku yiri naga farxiyo waxaan ku yiri aad baad mahadsantahay waan idin salaamaya